حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة تطوى على بؤس الشفاء. حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ذقالي أهواء السلامي مقعيق ورحمة هالكي نقدا ونيسان وملاك كانال maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago 6 qodob oo muhiim ah haduu alla awood la raali ka noqdo taasoo yani qofka noloshiisa kor u qaadayso gaar ahaan dumarka. qodobka ugu horeeya waxa waaye qofka inuu wax akhriyo wax barto intuu nool yahay yani noloshiisa wax ku kordhiyo maalin inaysan ku dhamaanin adiga oo aadan wax akhrin wax baranin wax kororsanin. maantana sidaa wada ognahay adduunku uu horumaray cilmiga oo dhan waxaa laga helayaa internetka wax walba u baahan tahay hadii ahaan lahayd cilmi diini ah iyo cilmi maadi ah. sidoo kale waa muhiim qofkii inuu wax akhriyo wax akhriska faa'iidada ay leedahay baa ka wada dharagsannahay in yani qofka aqligiisa ee kor u qaadayso karaadkiisa hadii uu rabo qofkii inuu luqad cusub inuu barto inay ka caawinayso hadii uu rabo inuu qoraa uu noqdo inay ka caawinayso inuu wax qori karo wax walba yani waxaad kasta leedahay inaa wax akhriska ku xaqiijin kartid. qodobka xiga waxa waaye hadii ay jiraan caadooyin xun leedahay in ay iska bedeshid sidoo kale aad kasbatid caadooyin wanaagsan. insha Allah mar ayaan ka soo hadli doonaa sidee ayaa loo kasbadaa caadada wanaagsan sidee ayaa la isaga jaraa caadada xun. qodobka saddexaad waxa waaye in xilli hore aad soo doostid yani jadwalkaaga nolosha waa inuu ka bilowdo aroortii hore habeenkii marka 3 loo qeybiyo qeyb kamid ah gaar ahaan qeybta ugu dambeyso ee habeenkii. hadii ay noqon lahayd inaad cibaadaysatid hadii ay noqon lahayd inaad wax akhrisatid hadii ay noqon lahayd inaad noloshaada qorshe u sameysid waa waqtiga ugu barakada badan uguna wanaagsan. sidoo kale dadka inta badan aan maqalno oo nolosha guulaha ka gaaray yani waqtiga ay ka faa'iideysteen waa waqtigaas waa waqtiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo degayo oo adoomadiisa uu dhahayo yaa wax i weydiisanayo oo aan u ajiiba ama aan siiya. qodobka afraad waxa waaye in waqti raaxa aad qaadatid yani meeshii aad joogtay meel ka duwan inaad tagtid in banaanka aad waqti ku soo qaadatid jawi bedelasho camal jawi bedelashadaas uusan iska noqonin waxa oo iska baashaab weliba adiga oo abuurista Ilaahay ku tadabburayo sida badda inaad tagtid oo kale daqiiqado badan asaas u fiirsid inay raaxa nafsiyan waa ku dareemee تنشي يعني أود إلهي وتسفي عنا وكرنيسا وقلبي أي كوينانيسا. قدر كشناد وحواي قفك عافيمات كيسة وين وكدالا عافيمات كما كي لقاها دلاي 3 قيب أي لو قيبيا عقلية روح ذا يجرك جرك عافيمات كيسة وود أوكنهاي وحواي يوكدهان مسكح ذا إن عنتفي عنه اسكود لترانينا قادتي sidoo kale ina biyo fiican ina cabtid oo kugu filan maalintii 3 litir ina cabtid aqliga yani ilaalintiisa waxa waaye in mar walba wax ku anfacayo oo faa'iido ku leh ina akhrisatid. sidoo kale ruuxda waxyaabo lagu ilaaliyo am kor loogu qaado waxa kamid ah cibaadadka iyo calaaqada Ilaahay kala dhaxaysa mar walba ina sii hormarisid salaadihi soonki sadaqadii wax walba ay Ilaahay ugu dhawaan kartid. qodobka lixaad waxa waaye gabadha inay leedahay hadaf nolosha inay hadaf ka leedahay hadafkaas kaliya ma ahan inuu maskaxda kugu jiro laakiin waxa loo baahan yahay in uu ku qoran yahay. markuu hadafka ku qoran yahay waxay ka caawinayaan mar walba inaa u sacaysid sidii aad ku xaqiijin lahayd hadafkaas. ma fahamtay hadafkaaga waa inuu ku qoran yahay waxyaabihi ka caawin lahaa inaa gaartidne waa inay ku qoran yihiin aad taqaanid. insha Allah waxaan rajeynayaa muuqaalkan inuu noqon doono mid faa'iido idin leh. waa mahadsantihiin soo dhawaada. حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة تطوى على بؤس الشفاء. حطمي اليأس ولا تستسلمي.